نمعي قلت هذه وينه قولي نابت بدن الله يو كارسي نبيجي الله يو كارسي نبيجي الله يو حبين قلي مل قوانا عداد قريات كوادو بعنان كده لحين استاكتو اركونا قودل كوغو بلابو كوفاعيو ديبع اسقودو قاربا ليسكو توسيايو توكسا لقبوت صداي عنيقا نبي قواقو عيقي كارسي نبيقي الله يو كارسي نبيقي الله يو نمعي قلت هذه وينه قولي نابت بدن الله لما أصحابته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنو جوجنا deegaanka isha goobka ee magaalada Hargeysa ama dowladka magaalada Hargeysa oo baahdi saxaafadda Hargeysa Ramadaan kasta hal maalin ayaanu u baxnaa halkan si aanu xisaga weydiino arrimaha saxaafadda isla markaasna aan waqti wada qaadano anagu galabta halkan oo nimca ay ka dhacday oo barwaaqa oo biyina halkan jiifaan ayaan wada joognaa dhamaan asxaabta soo dhawaada wataana meesha idinku marti qaadamaya عبد الشكور ضي محمد وهلكن بريغو رجيله ku raaci jiro deegaankiisii ay tahay salax la halkan inaga xigtaa saahana inaga weyn xasan aad ma santahay waxaan islahaa ninkii bedriban la joogo halka geela digaaga ku bedelay laakiin mar hadii geela ay noqoto okay horta dhamaantiinba soo dhawaada waxaan joognaa ishii gobka oo aan saa inooga fogeyn runtii asxaabtanina Ramadaan walba si caadi ay u kulmaan waana jimca Ramadaan u dambeeya oo jimcii u dambeeya Ramadaan ku jira weeye dhammaan muslimiinta horta waxaan ugu ducaynayaa inay Ilaahay ka aqbalo acmaashaasi soomka saxaafadana si gaar ah ugu ducaynayaa walba Ramadaan dhamaatay wal wixii dambe hal hubsado ducadii sheekha si qadimayay marka waa jawi wanaagsan runtii oo farxad leh دنين جيل كراعين دقيقة كلها يبا ما أنت واحد شجيش يجوبك مركا ترى فيصل كل جيل كراعي ترمي الوديلة داربر وانك صبر باري أريوال أنت بدن عن استعمالي تنو قرام بوحنا لأفريقيا جيلي لو ميالا كان مس أريوال تريحتها مركا روتي كل أصحابها دوانو سلام يحيى باي سوتشي تروتي أنت عن هالكن شوقي أم بان سوس عدو تشيل كسوتشي روح كم إذا دول كان قروح البدن له روتي مها مركي وقورس أصحابته السنة وكله رمضان يسوي مادان وهالكن أفرق وضرر يكون دقاتان بس شوي maanta wuxuu kaga duwan yahay in saxmadu intii ka sii badatay oo sadawqiyada maqleysaan iyo dadka kale nagu xayndaaban iyo goobahano dadku ay ku wada afreed moodo Hargeysa inaan cidba ku hadhin ayaa runtii soo jiidatay oo muujinaysa dadka koobaad waa nabadda runtii kulay nabadda halkan ka jirta dhamaantiin aad iyo aad ba mahadsantiin waa salaamay Ramadaan kariim saaxiibel waxa ku reejin doona Badri Koosaar oo runtii aan filayo isagu dooqiisu loo ahaa markii ugu dhameysay haye Ramadaan kariim meel kastaba aad joogtaan maanta sida saaxiibadeedii iga horeeyay dabcan waxa loo kala horeeyay hadalka sida loo kala weeyahay oo kala hadlay ayaan isleeyahay inta kala adiga malaha ka weynee ayaa horta hadalka loo kala qaatay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa Cabdiraxmaan Fantastic oo isagu goobtan quruxda badan iyo waliba nimcadan hortaalaba isagu diyaariyay aad iyo aad baan saaxiibkay ugu mahadnaqayaa rag maanta siyaasadii iyo warkii iyo arrimahaas oo dhan iyo buuqii baan Sulaymaanta halka kaga nasto magaaladii bacaawa tagays malhiinay halkana malaha ilaa aroorta marka aad baan idin salaam Ramadaan kariim Cabdi Rashiid baa soo dhaweynaya waxaanu ku sugannahay runtii sida saaxiibadii iga horeeyayba ay sheegeen deegaanka isha gobta oo aan wax badan u jirin magaalada caasimadda Hargeysa asxaab badan oo saxaafadda ayaa halkan isugu yimi ujeedkuna wuxuu ahaa in la wada afuro oo la iswaraysto runtii Cabdishiid Cabdiwahaab iyo Badri iyo Khalid iyo niman badan oo saaxiibada iyo Cabdishakuur iyo dhamaan meesha waa lagu dhan yahay waxaan ugu talagalnay intaas kaftanka iyo intaas marka geeleydi iyo arileedi laga yimaado anigu loodeedaan hadlay
lo'da ayaan u hadlayaa بدري قدوميها يا لولا استوى قلبي استوى قدوميها لا ده صار سبي مانيا لا ده صار سبي halka digaaga kuma rogay loodan gudoomiyada kooga intaas un baan oran lahaa saaxiibo kale ay iga dambeeyay hadalkan aan siinaya Ramadaan Kariim runtii maanta waxaanu halkan bartaas ku yimid qaybo kamid ah saxaafadda ka howlgasha magaalada Hargeysa halkanna waa duleedkii magaalada Hargeysa runtii maanta waxaan halkan ugu talagalay inaanu jawi runtii maadaama bishii Ramadaan ay gabagaba tahay jimciga ugu dambeysay ku jirno bal hadda inaanu jawi ka duwan jawigii magaalada Hargeysa ku qaadan jirnay afurka inaanu maanta ku qaadanaa aniga asxaabtu runtii meeshan waxa ka dhacay runtii kaftan badan oo runtii waxaan ku leeyahay rag runtii sheegtay inay magaranaysaa geel jiriyihiin ama geel jirayaal yihiin qaar runtii loodii magaranaysaa iyaguna magaranaysaa dhinacilooda dee garaadka meesha inoo jooga Cabdirashiid Cabdi Wahaab oo magaranaysaa deegaanka runtii ka soo jeeday loodu ay ka soo jeedo marka waxa kulay Badri ko saaro isaguna waxa kulay loodii ka badiyo yiri diyaagadihi isaguna oo isaguna inuu magacaabo dhiica garaadka diyaagadaha ayaan isaguna ku deyn doonaa runtii taas idinka baxaya asxaabtu waxaad leeyahay afur wanaagsan jimco wanaagsan Ramadaan Kariim Assalamu alaykum dhamaantiin aad baan u salaamayaa saaxiibadayda halkan ku sugan iyo dhamaan dadkana daawan doona Ramadaan Kariim waa jimco ay u dambayso Ramadaan waxaan u rajaynayaa dhamaan ummadda muslimiinta ah in Ilaahay nagu gaarsiiyo dhamaadka bisha Ramadaan iyo ciida bash iyo barwaaqo waxaan joognaa duleedka koonfureed ee magaalada Hargeysa waa waqti afur ah waa xilliga Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo adoomihiisa ay ugu dhowdahay inuu ducada ka aqbalo waxaan rajaynaynaa aan ummadda muslimiinta iyo guud ahaan Soomaalidaba ugu ducaynaynaa in Ilaahay ka dulqaado cudurrada faafaya ee corona kamid yahay inuu Ilaahay inaga ilaaliyo dhamaanteen madashan quruxda badan la arkaysaan inta kadib waxa aan uga mahad celinayaa walaalkay saaxiibkay Cabdiraxmaan fantastic oo runtii abaabulka iyo isku dubridka lahaa raggan aad arkaysaan waa dhamaan bahdii saxaafadda si sahlan isuguma yimaadaan iyadoo waqti shaqo lagu gudo jiray runtii ninka abaabulkeeda lahaa waa ninka Cabdiraxmaan fantastic oo mahad celinayno maalin walba waxaan soo tabinaa war iyo dhacdooyin dhiilow badan waxaan soo rajaynayaa muuqaaladan quruxda badan leh anaga nagu saabsan markaad aragtaan inaad ku farxi doontaan oo kaga nasan doontaan insha Allah wixii wararey aan horeydii ku soo gudbin jirnay sida hadalka iga horeeyay intii aan lahaaba way yiraahdeen haddii kafta noqoto iyo haddii noqotaba waxaan mahadnaqayaa horta Cabdiraxmaan oo madashan aad ka u quruxda badan leh inagu casuumay sidoo kale shirkadda duubitaanka iyo filimada London HD baan u mahadnaqnaa iyadoo muuqaalkan aad ka u quruxda badan leh aan inaga duubasa nimanku badan bay carabka ku celceliyeen oo waxay yiraahdeen geelaydiiba meesha isugu timi iyo ma taqaana loodi war maaha kama warqabtaane Cabdishakuur iyo Xasan waxa sheegaya iyo Khaalidow waxaanu leenahay ma taqaana geela waa dhaqana ee taana noogu soo hagaaga insha Allah bismillah kariim digaagaas malaha xeradeeda kuma jireen xeradii Badriyo ayuu ku jiraa baan filayaa waqti waxaanu joognaa afura Ilaahay inaga aqbal amaasha suuban waana kulankii muxuu ahaa mar walba Ramadaanta hal mar warbaahinta isugu yimaad jireen waxa ku soo dhaweynaya Cabdiraxmaan oo lahaa ma taqaana casuumadan iyo nidaamkeedaba bismillaahir rahmaanir rahiim galab wanaagsan Ramadaan wanaagsan waxaanu ku jirnaa xilligii khayrka 10kii dambe ee bisha Ramadaan horta kulankan waxaan aad ugu mahadnaqayaa Cabdiraxmaan fantastic oo soo qaban qaabiyay iyo bahda kale ee warbaahinta isugu timid dhamaantiin waxaad leeyahay khayrkeeda haynu gaarsiiyo sanadkan sanadkiisa in badan baa lagu kaftamay laga sheekay xoolihii oo dhan haddii xoolihii la qaataan u badaan u hadhaya marka sidoo kale waxaan u mahad celinayaa shirkadda inaga duubaysa London HD khayr baan isku rajaynaynaa bismillaahir rahmaanir rahiim Ilaahay subhanahu wa ta'ala mahad oo dhan ay u sugnaatay nimcooyinkiisa kala duwan inagu manaystay sidoo kale waxaan u mahad celinayaa asxaabteeda qaaliga oo runtii aniga wakiisha arintan inaan u soo qaban qaabiyo aad iyo aad ay u mahadsantihiin Ilaahay sharaf iyo ciise ku manaysto runtii waxaan ku jirnaa 10kii dambe bisha Ramadaan oo 10kii ugu fadliga badnaa Ilaahay waxaan ka baryaynaa acmaash saalixa Ilaahay aynu ka baryayno ku shaqaysanayno in Ilaahay inaga abaal mariyo dhamaantiin aad iyo aad baad mahadsantihiin kuna soo dhawaada deegaanka intii kaftana waa la yiri aniga intaas bay ga dhantay marka intii deegaanka naga sheeganaysaa marka anigu intii rodaalad madeeniga yiri maqay marka intii kaftana idinka yiriha aad iyo aad baad mahadsantihiin nimciye galladahadi weyne kuuliya nabad badan allahayo gaarsi nabigii allahayo